intii la dhaqda hadhow la dhargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa intii la dhaqda hadhow la dhargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa dhismaha qaran baa ku dhaadashalee ashii dhacantee habeena dhaxdaa hadhumin mar labaad hadhumin mar labaad waan ku dhimutee hadhumin mar labaad hadhumin mar labaad waan ku dhimutee dhismaha qaran baa ku dhaadashalee ashii dhacantee habeena dhaxdaa hadhumin mar labaad hadhumin mar labaad waan ku dhimutee hadhumin mar labaad hadhumin mar labaad waan ku dhimutee intii la dhaqda hadhow la dhargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa intii la dhaqda hadhow la dhargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa dhismaha qaran baa ku dhaadashalee ashii dhacantee habeena dhaxdaa hadhumin mar labaad hadhumin mar labaad waan ku dhimutee hadhumin mar labaad hadhumin mar labaad waan ku dhimutee dhismaha qaran baa ku dhaadashalee ashii dhacantee habeena dhaxdaa hadhumin mar labaad hadhumin mar labaad waan ku dhimutee hadhumin mar labaad hadhumin mar labaad waan ku dhimutee intii la dhaqda hadhow la dhargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa intii la dhaqda hadhow la dhargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa
intii la dhaqda hadhow la dhargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa intii la dhaqda hadhow la dhargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa haddii aanu nahay anigoo ku hadlaya afka guddoomiyaha magaalada nasiye labada xusbi ee mucaaradka xusbiga wadani iyo xusbiga ucud ka sharaxan cabdiraxmaan cali cilmi khaalid cismaan bureed waxaanu si mug iyo miisaan bale ugu soo dhaweynaynaa magaalada nasiye waxaanu idin leenahay soo dhawaada idinka waramo aad iyo aad ayaa labada musharax loogu taageersan yahay mujtamaca nasiye waana idin soo dhaweynaynaa si wacan baanu idin soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa kii guulaysta inuu noqono dhammaan dadweynaha reer nasiye waxay cod mug iyo miisaan la garab taagan yihiin labada xildhibaan ee dada yar oo aanu taageersannahay miyi iyo magaalaba waxa weeyaan magaalada nasiye waad aragtaan dee indhihiina idin macallina wax idinka hadhayna ma jiraan wax meel kale idinka leexdayna ma jiraan waxaa dadku ictiraafsan yahay oo la socdaa nimankaa da'yarta ee halkaa fadhiya khaalid cismaan axmed wayi iyo cabdiraxmaan cali cilmi waa labada halkaa fadhiya ayay la socdaa bulshada oo dhan iyo cuqaal islaamo iyo carruur iyo dhalinyaro waa idinkaa arkaya indhihiidayna macallina intaa haddaan kaan kaga dhaafo waxa weeyaan waa mustafa ballaaran ee noo timi ee cid walbale waanu u mahadnaqaynaa waanaad salaamantihiin salaanta islaamkaa ku salaamantihiin waxa weeyaan magaalada nasiye la yidhaahdo waxaa degan jamac badan waxaa degan faarax cabdulahaan walbale waxaa degan ibraam waxaa degan habar awal habar yoonis intuba way degantay intuba way fadhidaa waxa weeye labadaa xildhibaan ee aanu dooranay ee la soo baxnay waxa aanu rajaynaynaa inay waxqabadkooda ay saamayso magaalada oo ay cid walba saamayso oo aan qabyaalad wax loogu qaban oo reer wax loogu qaban oo qoys wax loogu qaban ee mujtamaca magaalada degan la saameeyo oo cid walba wax loo qabtaan jecelahay oo doonayna oo idinka rabnaa anigoo hadalkayga ka baxaya waxa weeyaan sida laydiin soo dhaweeyay ee aragtaan ayaa daacad laydinku yahay laydinku shaqaynayaa naayay nagu ridaynaa aynu farteena siinaynaa sow sidaa daacad kuma nihin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa laba xildhibaanoo da'yar waa laba xildhibaanoo dhallinyaraha waa laba xildhibaanoo wax soo bartay waa laba xildhibaanoo aan dhabarka la soo taabaninoo cid gaari soo taabanina iyagu iska isu soo sharaxay oo talkood isu soo sharaxay waxaan ahay anigu qolo maaha xusbigu anigu waxaan ahay beesha salamadow odayaashoodii waan taageersanahay waana soo dhaweynayaa labadaa musharax labadaa musharax aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan qabaa in la soo xulay waxaan qabaa inay ummadda wax u qabanayaan
waxaan qabaa inay degmada wax u qabanayaan aniguna degmadaan ka mid ahay aniga waad garanaysaa inankiinii baana inankiina cabdullaahi ismaaciil ciid ee halkan ku barbaaray wax badanna ka og degmadan markaan eegay 4 xildhibaan ee aynu soo ognay aynu biliin axmed nahay waxa kaliya aan gartay waxa weeye labada xildhibaan ee deegaankaagii wax u qaban karaya inay yihiin cabdiraxmaan cali cilmi iyo khaalid cismaan axmed buureed inay labadaa yihiin baan u doortay aad baan ugu hambalyeynaa labadaa aad baan ugu hambalyeynaa inay soo baxaan oo kuwa shaqeeya ay noqdaan oo ummadooda u shaqeeya aad baan ugu hambalyeynaa nafsiga ha la qaato labadaa inan خالد عثمان أحمد ويي إيه عبد الرحمن علي علم عبد الله وإنما ما أنت وحص إلهي ما دورتي وحقي سكسو دورتي إنقنا واكو راعينا ونفسي إنه سوى ريجي هلا قاتو سوى عنها هلا قاتو اسكو منا هلا هذا يلا كلا فقن هلا اسكو دوبنادو waxaan leeyahay war maanta ilaahay caadil haadow xasiiskiina abuuradow inamada wiilasha cartamaaya codadkooda ka taamiyeen codadkooda wanaaji waxaan leeyahay magaaladan waa magaaladii ragga wuxuu ina muraadir burco maalintii siilaaya yimi waa magaaladii ragga tana magaaladii ragga waxaan ka hadlayaa aan been ahayn waa halkii ciidamadu ka duuli jireen ee lagu dhintay ee cali cilmi aabihii ku dhintay weeye cabdiraxmaan cali waa meesha ku waa halkii dalka laga qabtay weeyaan maanta nafsiguu soo wareegay ilaa maalintii iyo maanta wax wuxuu qabtay lama hayo maanta nafsigii baa soo wareegay nafsigii yaa u soo wareegay waxaan leedahay waa dad yahow yaan layda kala fiqin waa layda kala fiqinayaa ninka suuqa toohaynayo waxaan leeyahay oo ay runtay tahay kuwii tayada lahaa ee aanu doorannay ee aanu u ducaynay ee waxaynala qabanayay ee dalka u halgamayay waa labadaa inan waxaan idiin sheegayaa waxaan taageerayaasha leeyahay labadan musharax waa laba musharaxoo cusub oo aan hore isu soo taagin haddii aad neef xoolaa iibsanayso oo irmaan waa la shirabaa haddii aad mid ugu iibsanaysana waa lagu nasiibsadaa waa kuwii lagu nasiibsanayey waxaan leeyahay waa ku nasiibsanaynaa waxaan raacaa intaa ii raaca waxaan rajaynayaa haddii ilaahay ku guuleeyo inay noqdaan kuwa midhahay beeraan la gurto wufuuddan timid magaalada ee uga horreeyaan labada xildhibaan ee kale ah khaalid cismaan axmed wayi iyo cabdiraxmaan cali cilmi cabdilaahi naanaysaa jira had iyo jeer aabayaasha lagu garto khaalid cismaan axmed wayi buureed bayaa bii lagu naanays jiray waa cabdiraxmaan cali cilmi cabdilaahi isagana gar low raaca markaa labadaa musharax ayaa loo baahan yahay in codkiina iyo cududiinaba aa isla barbartaagtaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa shacabkan reer geed ahaan ee sida wanaagsan ee sharafta ku jirtay boqolkiiba boqolkaa u soo dhoweeyey musharaxiinta iyo wufuudda la socota taageerayaasha ummadda reer geed ahaan waa u mahadnaqayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin weeye labadeennaa xildhibaan ee yaryar een xilka hore soo qaban waa inaad nala taageertaan waxa weeyaan cabdiraxmaan axmed cabdiraxmaan cali cilmi iyo khaalid cismaan axmed weyi waa garanaysaan waa dhallinyaro hare waxba inamay soo qabanin hare waxba inamay soo rag kalaa lahaa waxbaanu qabanaynaa waxna ma qabanin waxaa leeyahay habar baa 80 jir ahayd dabadeedna way dhali weyday markay 80 maraysana timid cawadow uur baan leeyahay wallaahi asliyan waaba kula yaabanahay buy
ragga hanuunta waxa qaban waaye maanta waxbaanu qabanaynaa maaha macquul wax suurtagalana maaha xanaanadeennii dumarkeennii baa maalin walba dhimanaya maalin walba dhibaata ka dhacaysa magaalada waxa lax loo qabtay ma jirto waa le cidnaas nagaa daymano laakiin labadaa nin baa ogaanaysaan haddii ilahay nagu ridanaa waxaad fahantaan dumarkiiyo dhallinyarada waxaynu wadno fahma dee layskuma haysta bininimiyo reerku wuxuu doonayay waxaa laysku haystaa wixii inoo dana inaad raacdaan bal cidda aad maanta nimankan baad dooranaysaan oo waxqabad baa rabtaan mise nimankii shalay idiin yimid baad la heshiiseen ayagaa raacaysaan ka hadla annaga imika bini-aadanimadu eeg idinku waa gudateen bini-aadanimadii laakiin inaad wax fahantaan baa loo baahan yahay nimankaynu wadnaa waa nimankii wax inoo qaban lahaa nimankaynu wadnaa ilaa wuxuu waynamadeenii waa nimankaynu maanta kaga samri lahayn farteena in badan baynu daalaagacnay maxaynu u baahanay waxaynu doonayna ha la fahmo shacabkuna ha fahmo layskuma haysto xigaal waynu wada nahay dadku waa wada xigaal waxaan xigaal hayni meesha ma joogaan laakiin waxaa la fahmayaa waxqabadkii inay degmadu fahanto ciddii wax u qaban lahayd iyo ciddii wax u soo doonatay ee ayaga wax ka doonaysay inamada waxbay doonaya far baydinka doonayaan idinna waxqabad baa doonaysaan kuwii horena dee way soo fadhiyeeno awalla waa ogeydeen haddana waxba idinka doonaya kala saara codkiina iyo hadalkiina iyo hadafkiinu meel ha wada maro rag iyo dumar waxaa isu sheegtaan oo maatadiina fahansiisaan calaamadaheena hadafkaynu leenahay maanta in la fahmo waxaynu bacadkaa u taagnay aanay khasaaree noqon baynu u baahannahay labadaa inan midina 302 ku calaamadsan yahay oo aan wada fahmaysan magacoodiina iyadoodii naftooda wada fahmaysan laakiin waxqabad baa loo baahan yahay waxqabad aynu muujino farteena diyaar ma u nahay inaynu cabdiraxmaan iyo khaalid siino ma u nahay oo sidaama daacad noogu nahay dumarku waa daacad ragga iyo dhallinyarada yaynaba comaynin labada musharax ee halkan fadhiya maanta khaalid iyo cabdiraxmaan labada ninaan la tartamaya ee shalay halkan idinla joogay waxay idin akhriyeen inaan ahayn waxba ka jirin waayo labada ninba waa laba ninoo hore loo doortay wuxuu ahaa baashi xildhibaan golaha deegaanka hore loogu doortay waxa uu gaadhay jegada maayor ku-xigeen oo muddo dheer fadhiyey xitaa ismuu awoodi jirin marka lala hadlo inuu isu soo taago dadka iska daa waxa uu qabtay iyo waxa uu soo celiyo mustafana wuxuu ahaa hay-adii isuduwii hay-adaha gobollada bariya somalilan dowladdii axmed siinaayo tanna wuxuu ahaa maareeye ku-xigeenka hay-adda waddooyinka somalilan oo wax badan qabata waxa uu awoodi kari waayey inuu maalin ka mida deegaanadiisa soo taago oo waddooyinkaa maalin walba ay baabuurtu isku gelayso uu baneeyaa uu awoodi kari waaye wax kale uu qabtay iska daaya sidaa darteed waxa muhiim iyo lagama maarmaan noqotay inaynu keenno cid cusub oo aan sidanin taariikh hore oo xun markaa labadan musharax waa laba nin oo wakhtigooda inoo huray yaynaan cidna la simin oo aan aad sharaf idinku haynaa soo dhoweynta aan nagu soo dhoweyseen waxaan weliba aad ugu sii faanaynaa anagu dee degaamada waa la sii kala leeyahay anagu waxaanu nahay degaankii halkan reer geedjacaan aniga iyo xildhibaanka khaalid cismaan axmed buureedba dee uhdi baanu nahay oo aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynayna waxaa intaa iu dhacaa waxaan anigu garanayaa oo halkan joogay iyadoo berigii faqarsii niman wasiirraayintay ka yimaadaan waraaleeye ay yidhaahdaan waxaa isku beegan futadayada sankayaga iyo futada balanbaal baa isku beegan waan xasuustaa waxaa iminka soo baxay baa la yidhi niman maaragtay madaxa oo ay isku beegantay futada geedihaan iyo sankooda ay isku beegmeen waa kuwa aan kaambeengaraynayno ee aan meesha ka saarayno ee aan ka hadlayno ee aan ku beddelayno dhiigga cusub ee ku jira khaalid cismaan axmed iyo cabdiraxmaan cali cilmi galle waqtida iyadan halkan maraysaa dee horena waa loo yimi halkan hore waa loo yimi labadaa musharaxaan wadne ee la sheegay waxa weeyaan khaalid cismaan buureed iyo cabdirasaaq cabdiraxmaan cali cilmi waa iyaga lama wade iyaga soo baxay markii horeba waxaa laga yaabaa dee musharaxiinta ay soo martay war badan tahay waxaa jira qaar riixaya oo dabada ka riixaya laga ku celi dabada kama riixayne iyagaa sidooda u yimi annana waxaanu ku taageeray oo aan ku soo raacnay dee xigaalkii iyo dhallinyaradii wixii hore loo socmay waxa dambena inay dee arkaan oo nala qaataan intaanu annagu ku wadnaa waa intaasaan ku soo raacnay annagu iyagaa na hogaaminaya annagu dabada kamaanaan riixayn waxaa
waxaa laga yaabaa dee qolo kaloo innaga ah oo naga soo horreyso aan magaalooyinka isugu imanaynin dee wax dadku waa iswada garanayaa dad meel laga soo iibiye ma jiraane dee odayaashii kuwii cuqaasha berigi hore koofiyada sare dhaqanka u doorannay dee waxay doorteen kuwii horeba waxay inoogu qaban waayeen ee hore dawladda inoogu galay ee aynu u dooranay codadka u siinay kuwii unbay daawayeen kuwanina qaar shaqooyinkoodii iyo hawlahoodii iyo wixii u gaarka ahaa bay ka yimaadeen oo waxay halkan u yimaadeen oo iyagu isu soo saareen inay ummadooda u adeegaan marka annagu sidaanu kula socnaa waxa adeegayaal weeyaan ilaahay inoo soo diray kuwani aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa sidaa noo soo waqtigaa gaaban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida mooga iyo miisaan kale aad noo soo dhowayseen waa ku mahadsan tihiin waanan idiin soo dhowaynaynaa waanan idinka filanay waanan isku leenahay matalaya golaha baarlamaanka waxay noo matalaya khaalid cismaan axmed waji cabdiraxmaan cali cilmi cabdilaahina wuxuu inoo matalayaa golaha deegaanka taageerada buuxda aynu u siinaynaa ilaahayna ha ku guuleeyo ninna waxa weeye bulshada ayaa keentaa ninna wuxuu ku yimaadaa dabada looga riix ayuu ku yimaadaa dabaka riix buu ku yimaadaa marka waxa weeyaan bulshada ayaa iska dhex dooratay ama see danteeda ka aragtay waxaana weeyaan rag aan ku fashilmin qarankana hore ugu shaqaynin inoo cusub aqoonta ka cusub oo dhallinyaro ah oo firfircoon labada ninba waa laba nin oo hantilayaala oo waaweyn oo la garanayo aqoontooda iyo cilmigooduna uu horumarsan yahay waxaan ku soo gaabinayaa inaannu codkaas siino soo islamaynaa garan waxaan leenahay ha guulaystaan guul baynu u rajaynay waxaynu u gooyey inay ku guulaystaan labadubana inay inoo soo baxaan salaan kadib reernasiya waxaanu idiin wadnaa ned been idiin sheegi mayno in badan baa halkan kulmiya been ka sheega annagaa oo ka mid ahayn kulmiyata sheegaalaha naga saamaxo wax badan baa waxa la yidhi waa kulmiya waxba wadda kala qabanaya waxaa wuxuu idiin qabtay ma jirto degmadana xaq baa wahay xaqaa leedihiin baa heshe waxba idiin muu siinin marka labaad mid inaad noqotaan baa loo baahan yahay reernasi waxaanu leenahay ilaahay meel isku wada beeray ilaa inta labnood yahayna waa wada noolaanaysaa idinku degmadiina inaa wada hagaajistaan ba xaq u leediina cid kaleba idin soo dhex gasho oo buufiska idinkula dhex tuuro taa iska ilaaliya reernasiyow idinkaa inaniga abtigiya idinkaa waxiso ah idinkaa burcada ka nimi annagu reer burcada waanu noqonaynaa idinkaa iskaaga xiga xisbiyada mucaaradka baa maanta soo baxaya afrika weligeedba waxa weeye ama dictator baa qabsada oo qori laga rogaa ama xisbigu hadduu laba jeer soo noqdo ama saddexaad ma soo noqdin niyadda ha gelinine xisbi dhacaya waaye kulmiye xisbiga mucaaradka ku itaala nimankaasi waa aqoon-yahan waxaanu idinka ballan qaadaynaa inay nimankaasi nasiye ay u noqoto rugta ay fadhiistaan marka hore shacabka ballaaran ee degmada nasiye aad iyo aad baan idinku hambalyaynaynaa aad iyo aad baan idiin bogaadinaynaa sida sharafta leh karaamada leh maamuuska leh aad noo soo dhowaysteen wafdigan ay hogaaminayaan labada musharax khaalid cismaan axmed cabdiraxmaan cali cilmi labadaasoo u sharaxan doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waad ku mahadsan tihiin ballantiinnii waanu aqbalnay aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa qodobka labaad waxa weeye arrinta nabadgelyada degmada nasiiwe deegaan ballaaran beelo badan baa degan sidii la sheegay faarax cabdulle habarawal cibraan iyo nuuxii iminka hadlayay qoladii sowlomadowba iyo habar yoonis intaaba waxaan ka muuqata inaad midaysan tihiin midnimadiinnii iyo wadajirkiinnii ilaahay ha idinku guuliyo qodobka saddexaad waxaan idiin sheegayaa anigoo ka mida golaha deegaanka degmada burco oo uuna hogaaminayay maxamed muraad inuu wakhtiga iyagii dhammaaday aanu halkaa ku dhacnay dib dambena aanan idiin harowsanayn
waxaa xasaanadii la wareegaya labadaa musharax waxaa la yidhaahdaa kacdoon shacab waxaa la yidhaahdaa dhiig cusub nimankaasaynu fartooda ku soo saaraynaa nin nabar leh ama boog leh ama dhaawaca dib dambe u dooran mayno aad iyo aad waan ku raagay waxaa inoo ballanaa xilli doorashaa la galay dib dambe yaa laydii harowsanin aniga iyo maayirku wakhtigaygii uu dhammaaday waa inuu badheeraa oo ka hadhaa marba gidaarkanuu isa soo taagayo odayaashanuu leeyahay inamada i xidhxidha xaalad doorashaa la galay guul baan idiin rajaynayaa soo codkana siin maysaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reerna siya aad iyo aad baan idiin salaameynaa rag iyo haweenba aad iyo aad baan idiin salaameynaa si milgeeya sharaf leh iyo maamuusle baa noo soo dhaweyseen waa naga farxiseene ilaahay idinka farxiya baan leenahay de waa intaasoo ninku wuxuu yihi waa haddii axa ku raace waa farxaddaasoo codkuna raaca wax kalaba maaha farxadda iyo soo baxa oo codku raaco awaankii weynaa soomaaliyeed cali suguladun carbeed baa gabiye wuxuu yidhi diric keli ahaantii daleel guusha kama helo dadkaa geesi lagu yahay horta waxaa geesinimo lagu sheegtaa waa dadka marka waxaan leenaha ninka dadka hanta quluubtooda ninka dadku yacni ugu soo joogsadaan ama jeclaadaan ninkaasubaa geesinimo sheegan kara ninkii inta loo soo joogsan waayo dadka badhna jeelka ku gura badhna u caga jubleeya badhna idhaahda duciya habaar kala dooro ninkaa geesinimo way kala tageen geesinimada iyo xiliyuhu waa dadka weeyaan dadkaa geesi lagu yahay aad iyo aad baa mahadsantihin intaa ka bacdi doorashaynu galaynaa doorashadu waa iska xasaasi weeyaan waktigii wax yar baa ka harsan xisbiyaa tartamaya musharaxiin baa lasoo saarayaa aad iyo aad baan ugu farxay dadweynaha reer nasiye inay fahamsan yihiin waxyeelada xisbiga kulmiye sida uu doonayo bulshada inuu u kala qoqobo u kala saarsaariyo inay u fahamsan yihiin waxaan leenahay annagu waxaan taageersannahay nasiyanimadu inay shaqayso dadku isku duubnidooda iyo midnimadooda ay horumar ku gaari karaan madaxweynayaashii maraykanka hore mid ka mid ah wuxuu qoray buug maraykanka 700 milyan dad ahba ku nool waa kala kalar qaar waa madow qaar waa cadaan qaar waa rid indianis qaar waa carab waxaasoo dada oo kala kalari haddana hal calan bay wada harsadaan hal ujeeday wada leeyihiin dabeetana state waxaa jira kood ka caana maraykanka gudihiisa waxay dhahdaan our strongest is in our diversity awooddeena iyo tamarteenu waxay ku jirtaa kala duwanaanshaheena inuu tafaraaruq keeno maaha inaynu kala baxno maaha inaynu kala fogaano maaha kala duwanaanshaheenu waa inuu keenaa awood iyo isku duubni waxaana waa degmona waxay degmo ku noqon karaysaa in dadyow kala duwani ay degaan in cid kala duwani ay ka dhex muuqato iska dhex rabto haddii ay cid quri degto ama cid quri sheeqato degmo noqon maysa tuulay noqonaysaa soo saa maaha si aad degmanimadiinu ay u taabagasho way taabagasho tahay waxaa ilaashataa reer isyow isku duubnidiina ilaashada dadka magaalada dega isku duubnidooda inay ilaashadaan baan kula dardaarmayaa wax walba inay nasiyanimada ka horraysiiyaan inay magacooda ku dagaalamaan soomaalinimadooda soomaalinimadooda islaamnimadooda ugu dambayn nisiyanimadooda wax nasiyanimo loo dhaafo oo hoose oo loogu daadegaa yaani degahayga dib ugu dambaysa soo dhicin aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay degmadu taabagasho aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay maamul yeelato aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa yacni waxa weeye inay hana qaado laakiin marnaba ma taageersanin dadka tirada yara ku nool in la kala qoqobo dhisyo wuxuu u baahan yahay in la isugu abtiriyo in loo kala abtiriyo ma baahna in loo kala abtiriyo looma baahna waxaa inoo ballana nasiyo isku duuban markaa isku duubnaataan ayaan annaguna insha allahu tacaala wax idinla qaban karaynaa laakiin dad kala firaqsan ama dad kala faqaya ama dad kala gudaya dee waxba looma qaban karo soo sidaa maaha danta wadajir guud bay dayac kaga fogaataa wadajirka guud baan idinkula dardaarmaya halkan waxaa dhaliilo badan looga jeediyey dee niman baa cagteeda ku badiyo oo idinku soo noqnoqonayo meeshiiba ka rays qotay oo yacni waxa weeye ka teg waayey intaa been baa laydiin sheegayaa waxbaa laysku raacay baa la odhanayaa faqa hoosaa laydiin sheegayaa waa wax laysku raacay ma jiro go-aanka idinkaa iskale ciddaa doorataa maana soo baxaysaa muwaadiniin baa tihiin xaq baa u leedihiin inaad codaysaan annaguna xaq baan u leenahay inaan codayno balanteenu waa doorashada 31 May madax dhaqameedka laga cabanayo ee koofiyadii loo dhiibay ee dhexda ahayd ee loogu talagalay ummadda inay ugu adeegaan oo ay kaga shaqeeyaan turxaan bixinta ummadda dhexdeeda qaadhaan ururinta iyo magta siyaasadda la soo dhexgalay siyaasadda ku milmay waxaanu leenahay koofiyaddu meeshii ay lahayd ku celiya koofiyaddu guri bay lahaydoo ummaddaa lagaga shaqayn jirayoo laysugu jeeri jiray in ummadda lagu kala fogeeyo oo badhna lagu soo dhawaysto
badhna lagu fanteeyo wixii koofiyadda loo samaystay maaha koofiyaddu geedkeeda ha tagta baan leena halkeeda ha ku noqoto yani waxa weeye milgaha laga qaaday koofiyadda oo la sharaf dilin haddii koofiyaddu ay ummadda dhex u noqon weydo oo isku ilaalin weydo isku wadi weydo ay dhan noqoto taasi koofiyad ma haddee ninkay musharaxnimadeedii koofiyaddiisii doonaya inuu kula dagaalamo musharaxnimadeeda musharax kalena inuu ugu shaqeeyaa ma wuxuu doonayaa oo diyaar u yahay in berri marka uu uga soo horbaxan lahdo koofiyaddaadaasaa noo saarsanaya miya suurtagalta haddii uu maanta dhexnimada ilaalin waayo ma berri ma anagu iga filayaa inaan yani waxa koofiyaddiisa aanu marakaco ku dhahdo waa kana caaqilkaygii ma shaqaynaysa dee wuxuu caaqili ugu yahay aniga iyo ninka kale aan u simannahayba inuu dhex noogu shaqeeyo waa intaa wax kale maaha haddii uu dhexnimada ka tago oo uu xuquuqda dhexnimada ee aan ku leeyahay uu lumiyo aniguna waxaa luminayaa xuquuqda uu leeyahay ay yani waxa weeye inuu koofiyadda aniga ii sido intaas baa meesha ka baxaysa waxaa inoo ballana 11 May codaynta maalinta doorashada qof walba adigoo xora mustaqbalkaaga farteeda ugu hiili in badan baa nasiye la haroosaday waxa weeye 2017 maalintii degmada nasiye la magacaabayay olole lagu jiray soo xasuutaan doorasho ahayd soo xasuutaan waxa degmada laydinku magacaabay inta musabixi halka la keenay baa la yiri si aan musabixi ugu codaysaan sataambeeda soo taagnayn hore laydin cawarayde miyaan hore laydin cawarin bay maanta layd cawara diyaartiin labadii 4 sano ka bacdi maantana in la yiraahdo degmadii baa loo walqalay 4 sano koor maxaa qabanaysiin miyaa maqnaydeen oo hayaan baa haydeen de maanta haddana inta degmadii idinku waa ku tabacdeen dhisateen degmadii ka dhistay xukuumaduna waxay idinka qaban karaysaa in kasta gaabisada way idinka qabata tacabkiinii in maanta olole lagu beego oo la yiraahdo rag baa lagu ololay inta xadhig lagaga jira baa la oranayaa ragga kulmiyayna siiyo kulmiyana ragga mudan loo dhisayaa waxaan islaam mar dambe leeyahay khaldi ma yahay nasiibo caqligiina wada ku filayaa haddii 2017 degmo olole la idin siiyay haddii aad shaqaysateen oo degmadiinii dhisateen oo xaruntii gobolka iyo MCH-kii iyo rugtii booliska oo nidaamkii degmanimo aad taabagalkeedii ka shaqayseen maantana in xilli olole leediin yimaado la hado degma xadhiga laga jaraya oo marka wixii la isku fahmin la hado beelihii la isku daro la kala qoqodo intaana ka korintii ma filaya dhamaantii sacanka maaha degmada cidi ka laaban mayso mar walba waa degmo soo taas kuma ina raacin waa loo warqalayaa xaflad weyn baa lagu fooladeynaya insha Allah tacaala waa sal isugu imanaya xafladeeda waa loo dhamaanaya cid gaar ah shaarkeeda loo gelin maayo inagoo gacmaysaysanadan xafladda wanqasha ee nasiye qabanna insha Allah tacaala annaga ka soo qayb galena intii naga maqan ka soo qayb galaysa reer nasiyo dhan baa imanaya wax lagu wada qanacsan yahay oo lagu wada faraxsan yahay oo gacmaha la soo haystay insha Allah tacaala magaalada ugu xafladana ugu wanqalena wixii 3 sano iyo 4 sano oo maqnaa yaare noqon wax la disinayo ballanteena waa kooba sodonka bisha iyo astaanta lagu codeynaya baarlamaanka khaalid lagu codeynaya waa cali shafrood sawiradan wada haysataa baan maleynaya marka golaha deegaanka loo codeynaya waxa lagu codeynaya 302 tirsiga aan ugu sharaxanahay waxaan ballan qaadayaa degmada nasiye insha Allah tacaala halka markaan ku soo baxo wuxuu kordhan mooyaane inaan waxba ka dhicin insha Allah tacaala iyo deegaamada ku xeeranba maarahim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad salaam ya reer nasiye dadka sharafta badan leh sida maamuuska iyo qiimaha badan leh dhowrka saacadood halka loogu taagnaayeen la sugaayay waxaa naga mudantahay sharaf gaara dhammaan haweenka dhalinyarada carruurta waxgaradka odayaasha sida sharafta leh loo soo dhaweysay sharaf gaara iyo muhiimad gaar ah noo leedahay magaalooyinka oo dhan saas loo soo dhaweynay laakiin gaar ahaan nasiye si xoog oo soo camartay waan dika firin dadka waxa lagu kala doortaa dadka bini'aadanka ee sida dunida caalamka loo isticmaalo waxa lagu kala doortaa qofka shakhsiyadiisa waxa lagu kala doortaa wax qabadkiisa qofna la iskama jeclaado buudka wax la iskama saaro calan lama saaro qofka waxa lagu doortaa wuxuu qaban karo wuxuu yahay iyo wuxuu soo qabtay mustaqbalkiisa CV-giisa loo akhriyo anagu waxaan jecelahay in lagu doortaa waxay tahay oo wax qabad daacad ah oo horumar ah oo degmada ah oo magaaladan ah oo nasiye ah insha Allah bismillaahi kariim marka waqtigeeda qabano si ay ciyaalkeena halka fadhida iyo dadkeena iyo haweenkeenuba uga wada helaan wax qabad dhab ah oo aan ka turjumayno aan gacanta idin saarno kaasa ah waa muraawal ahayd adiguna codkaaga muwaadin waxa ku bixisa waxa weeye muwaadin
codkaaga waxaad ku bixinaysaa waxaa weeye oday baa ii keenay hebel baa ii keenay kanaanu isxignaa habeen baanu isxignaa waxaa adduunka xol laguma bixiyo codkaaga waxaad ku bixinaysaa waxa weeye codkaaga waxaad ku bixinaysaa waxa weeye waa waxqabad keebaa waxii qaban kara keebaa kala dhaama keebaa hore u socon kara keebaa aniga iga turjumaya keebaa degaan ka turjumaya keebaa dadku ka turjumaya keebaa haween ka turjumaya keebaa hooyooyin ka turjumaya keebaa intaan imika haysto wax sii dhaafin kara kaas ayaa wax lagu doortaa waxba laguma doorto nin baa dhabarka layga soo taabtay oo dabeetana halkan laysoo fadhiisiyo 4 oday ama 5 oday oo aan wada matalin ay yidhaahdaan kaan idiin soo xullee kan doorta oo hore weliba loo soo doortay 9 sannadood buu ahaa musharax 9 sannadood buu ahaa golaha deegaanka oo ka mid ahaa xilka hadallo fadhiyo sagaal sannadood buu ahaa golaha deegaanka iyo maayor ku-xigeen hadduu maanta nasiyo wax ka sheegto oo yidhaahdo taasaan qabtay hadduu wax ka sheegto ay taasi run noqoto anaaba iskaga tegaya laakiin waxaan ogahay 9 sannadood buu halkaa joogay inaanu intaa in laag idiin sheeganayn hortiinana iman kareen ayuu 4 oday soo kaxeeya mooyaane inaan hortiina iman karin oo aan oran karin taasaan qabtay laakiin waxaan idin ballan qaadi doonaa 5 sannadood marka naga dhamaado bismillaahi kariim ilaahayna la cuskan inuu noo fududeeyo inaan nagu markaan ka degayno aanu taasaan qabanay